الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل كان سيد أجدان خيارتنا محمود آدم قلتها لن كمدك ولكن نحن وحاول أبتنا ونوهاي عبد القادر قلب حور إيه بشير محمد صافي سكوت هذا dhulkan horta asal ahaan dhulka deegaankan waa bacrin fertilizer way anigu meel kamid ah ciideedii waan qaaday ilaa baa la geeyay Nairobi fertilizer way ay wax badan ka bixi karaan laakiin de aqoontii ka faa'iideysan lahayd wadankan oo taalo dadkan deegaanka jooga intay ku filan yihiin bay qabteen waxa way xoolaha inay ilaashadaan xoolaha way raacdaan ma dhaqdaan macnaha way waxa hadda biyaha aad arkaysaan oo halka dhooban bil ama laba bil ka bacdi dadkii waa ka oomayeen loogama hadii marka biyahaas la kaydin lahaa beerihii baa looga faa'iideysan karaa calafkii xoolaha looga faa'iideysan karaa laakiin aqoontaas waxa la rabaa intii ay meel kale ay ku wareegi lahaayeen ama maal gashan lahaayeen inay deegaankooda maal gashadaan dabcan hadda ciidda soo arkaysaa waa dhoweyd rasmi ah ciidii saxda ahayd ee waxa way biyaha ceshanaysay hadii aqoonteedii la keeno meeshan waa la qodi karaa markii la qodo la weyneeyo dhulkaas oo dhan ayaa deedna waxa la sameyn karaa tan laftigeeda ayaa inta la qaso si fiican loo qaso ayaa lagu la marmarin karaa darbigii ciidina hadda marka bacdu baxayso waliba hadii xoolaha iyo laga ilaaliyo oo ilaa 3 jeer ay xoolo galaan ayadoo wax kale lagu sameeynin oo ay 3 jeer biyo galaan xoolaha iyo cagta laga ilaaliyana biyo marba ma sii deynayaan marka dadkan waxa hagraday dadkii aqoonta u lahaa ee u dhashay waxa kale mudane Cabdulqaadir waxaan qabaana ku weydiiyay ma jira mashaariic ay ka fulisay yani dawladda ama hay'adaha wax bixisada USA geeyigan ma jirto USA waagi hore ilaa xilli hore bay mar deegaanada ka shaqeyn jireen gaalkacyo iyo laakiin hadda 3 sano 4 sano u dambeysay USA wadankan waxa kama qabato mana yimaadaan ma garanayo sababta hadda waad aragteen wadankan waa soo marteen 300 kiiloomitir oo aadan hal qori aad arkayn oo macna amnigeedu meel uu 100% la isku haleyn kara deegaanada ugu amniga badan ee deegaankan uu ku jira marka laga yaqaano maxaa la yiraahdaa wax amni darra qorigana waa laga xishoodaa oo dhulkan hadda qoriga waa laga xishoodaa marka runtii ma jiraan USA anaga ma aanan arkin beertan hadda man waxa noogu sheegi kartaa wasilka ugu taala iyo mashruuca hadda ka wadid iyo caqabadaha ku haya runtii aniga hadda beero badan baa sameeyay beero waaweyn yihiin beerahaasna ujeedkay ugu weyn waxa weeye inay dadku wax ka faa'iidaan sida wax loo beerto sida calafka loogu beerto iyo raashinka loogu beerto shaqo abuur inay noqoto dadkiina aysan xillina abaartii xoolaha ka leyn xillina biyaha ka leeynin laakiin dadku intay biyaha samaystaan inay markaas calafkii beertaan deedna ay u baxsadaan xilliga jiilaalka koo beerahaas beero waaweyn waaye aniga beerihii waan xareeyay waa sakuur weeye then runtii beero aad u tiro badan waaye waa dhowr qaybood baan ka dhigay waliba isku dhow si aan xoolaha is caqabad u noqon marka waa beero tiro badan biyihii leh maxaa la yiraahdaa lehna maxaa la yiraahdaa xareysana aqoontii beerta ma jirto aqoontii u baa maqan aqoontii iyo investmentii baa maqan aqoontii iyo maalgelin badan ay beertu u baahan tahay ma jirtaa meel ceel ku haboon oo laga sameyn karo waa sameeyna ceelka oo ka sameynaba waa sameeyna haddana solar energy waa loo baahan yahay haamihi baa loo baahan yahay kuwii biyaha tuurayay bamki biyaha tuurayay baa loo baahan yahay so investment baa u baahan tahay meeshaas deegaanka mu dhowdaa marka ilaa 3 kiiloomitir bay u jirtaa magaalada ugu weyn magaalo weyn oo leeyahay wasil haddana waxa ka mid tahay halwadaanada ugu waaweyn ee wadada waa beeriya wadnay noo tahay inaan isku xirno gaalkacyo iyo meesha la yiraahdo iyo hobiyo wadadeedii waxa hadda qoraxda u taaganahay baad saaqo dhan lagu weynaynay cabir baan haynay oo u dhaxeeya hadiile iyo meesha la yiraahdo elguula cabirkaas saaqo wadada 160 kiiloomitir